mas-uuliyiintii ugu sarsaraysay xisbiga wadani ee garabada dhalinyarada ee magaalooyinka Gabiley iyo Arabsiyo ayaa habeenkii xalay ahayd si rasmi ah u shaaciyay inay iska casileen xilalkii kala duwanaa ee ay u hayeen xisbiga mucaaradka wadani sidoo kalena shaaciyay inay ku biireen xisbiga kulmiye mas-uuliyiintani oo arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladoodii kamid ahaa Dr. Axmed Cabdullaahi Cige Axmed Shukri baan ku magac dheerahay hadii beedmaayo waxaan u soo shaqeynay xisbiga wadani muddo ka badan sanad marka arrimahan isku casilayno waxa ugu badan arrimo maamul hadii aan ku talaxtigin maamulka xisbiga oo aad iyo aad loogu jilicsanaaday oo aanu ka biyeedinay hadaan qeyr arabsiyoodnay qaasahan dabadeetana waxaan iska casilay habeenka caawa mas'uuliyadii aanu haynay gudoomiyihii garabka dhalinyarada ee guud ee xisbiga wadani ee degmada Arabsiyo magacayguna yahay in aanu iskaga baxno gobolku aanu oolin waxa noo cadaatay hadaan nahay mustambeedkii xisbiga ama madaxdii xisbiga u fadhiday degmada Arabsiyo inaanu istiqlaaladii kala noqonay in Xasan Ciise ogayi degmada Arabsiyo xisbiga wadani oo aan caawa iska casilay يعني وافيانك حسبي ودني دغمدا Arabsiyo magacayguna yahay Daawud Axmed Colahaye waxaan iska casilay xilkii aan u haynay wadani niwa gudoomiye garabka dhalinyarada gobolka Gabiley xisbiga wadani waxaan halka ka cadeynayaa inaan xilkii iyo xubinnimadii aan u hayay xisbiga mucaaradka wadani aan iska casilay sababo maamul xumo darteed Rahmaan Rahiim waanigu Maxamed Axmed Jaamaca gudoomiyaha degmada Arabsiyo xisbiga mucaaradka wadani waxaanu halkan maanta ku shaacinayna inaanu iska casilay xisbiga wadani xubin gudoomiye garabka haweenka xisbiga wadani ee gobolka Gabiley waxaan halkan ka cadeynayaa ama ka shaacinayaa inaan iska casilay xisbigii wadani aan xubinta u hayay waa kaadiriintii xisbiga waa labeentii xisbiga ee gobolka Gabiley ee xisbiga wadani uu lahaan jiray waxaan leenahay ku soo dhawaada xisbiga kulmiye waa xisbigiinii gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa soo nimid xubno badan oo xisbigii ka mid ah jeedada halkan isku mid waxa weeye waxaan halkan wada joognaa maanta caawa xubnihii ugu firfircoonaa ee uu ku dooli jiray xisbiga wadani yaanu caawa halkan wada joognaa oo ku faraxsanahay qaar ardadeedii ka mid ah ku jiraan waxbaray waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilka Case Sob News TV Gabiley.